taariikhdii hore aan qornayn prehistory marka laga yimaado aadamiga kuwooda ilbaxnimada keenay waxa ugu horeeyay boqortooyadii ay iska dhaxleen qoysaskii faraacinada ee masaaridii hore boqortooyadaas oo jirtay 3,000 sano waxaa loo qaybiyaa 3 dawladood oo kala ahaa dawladii hore oo jirtay 3,000 ilaa 2,800 nabi ciise horti taa oo markay bilaabatay hadda laga joogo 5,000 sano dawladii dhexe oo jirtay 2,800 ilaa 1,725 ciise horti iyo tii u dambeysay oo jirtay 1,725 ciise horti ilaa ay soo baxday xadaaradii Greegu taariikhdu waxay xustaa in xiriir xoog leh u dhaxeeyay Soomaalida iyo faraacinadii hore ee Masar boqorkii ugu horeeyay ee safaradiisu yimaadaan Soomaaliya waxa lagu tilmaami jiray in la oran jiray Khufu 2,589 ilaa 2,566 BC taariikhdu waxay xustaa wiil uu dhalay Khufu in dooni uu watay uu la socday nin Soomaali ah oo magaciisu ahaa hortiisa waxaana loo maleynayay in ninka Soomaaliga uu ahaa dalyaqaan tusayay Soomaaliya faraacinadii hore qaar ka mid ah waxay Soomaaliya ugu imaan jireen ganacsi qaarna waxay u imaan jireen bililiqo waxaana la xusaa in dagaaladii ugu horeeyay adduunka ka dhacay ahaayeen dagaal dhex maray Soomaali iyo faraacino bililiqadoon ahaa oo Soomaalida la dagaalantay faraacinadii dambe aad ayay xiriir ula soo sameeyeen Soomaaliya gaar ahaan xiriir ganacsi waxa ugu caansanaa boqoradii Hatshepsut 1508 ilaa 1458 BC oo xiriir weyn la soo yeelatay Soomaaliya waxa taariikhdaasi xoog weyn ugu xusan isla markaana ay faraacinadu ku sawireen ahraamtooda in safarro waaweyn ay boqoradaasi u soo dirtay Soomaaliya dooniyihii ay soo dirtay oo lagu qiyaasay 6 doonyood markii ay soo gaareen Soomaaliya si weyn ayaa loo soo dhaweeyay waa la marti sooray waxaana dooniyihii loogu raray shixnad qaali ah iyo hadiyad looga buuxiyay dooniyihii markii safarkaasi ka laabtay Soomaaliya oo uu gaaray Masar waxay boqoradii tiri waxaad ka timaadeen dhulkii aabayaal iyo awowayaal hadalkaas oo loo daliishado in xadaaradii ka aasaasantay dhulka masaaridii hore ay asal ahaan ka soo jeeday Soomaaliya waxa taariikhdu muujinaysaa in ilbaxnimadii hore ee masaaridu ay asal ahaan ka soo jeeday dhulka Geeska Afrika ee Soomaalidu degto halkaas oo ay kala tageen ilbaxnimo iyo xadaarad waa nasiib darro in taariikhdaas ka qarsoonto Soomaalida oo Soomaalidu ay yihiin dad taariikh dheer buuga la yiraahdo Pharaohs Philhas and Explorers oo la qoray 1892 oo ka warbixinayay safarkii ay boqoradii Hatshepsut ugu dirtay Soomaaliya waxa uu qoray sidan dhacdadaasi waxay ahayd in la sameeyay xayn maraakiib ah oo mari kara badda waxaana loo diray dhulkii Buntil dhulkaas oo Masbeero iyo Malatid ku asteeyeen inuu yahay qayb ka mid ah dalka Soomaaliya oo ku yaala dhanka bari ee xeebta Afrika oo xuduud la leh gacanka cadan dhulkaas oo qani ku ahaa beeyada fooxa xabagta qaaliga ah mayraxda dahabka foolmaroodiga iyo alwaax qaali ah waa dhulka loogu yeero dhulkii qorfaha waxaad igala socotaan madasha juqraafi